السلام عليكم أخيرتي ميل walba joogtiin oo markale muuqaal cusub ku eegi doono wararkii ugu dambeeyay kubadda cagta wax walba oo ku saabsan suuqa Manchester United oo soo qaadanaysa January laacibka loo magacaabo Fabrizio Chiesa, Liverpool oo u dhaqaaqaysa soo qaadashada laacibiinta kala Doni Malen iyo Aria Tchouameni oo Real Madrid iyo Borussia Dortmund ka kala tirsan. Chelsea iyo Manchester United ayaa ku dagaalamaya laacib da'yara oo lagu magacaabo Lauren kaasoo ka tirsan Flamengo. Real Madrid ayaa dib u helaysa Alaba kulanka Napoli iyo dhaawacyada Manchester United soo gaaray ciyaartoydeeda ninkii Martinez ahay iyo laacibka Loma Reglan oo Manchester dhaawacyo ka soo gaareen. Anthony oo dib ugu soo noqday tababarka Manchester United. Ronaldo oo kooxdiisa Al Nassr caawa guul ku hogaamiyay. Haddii aan muuqaalka heshan oo la garaya kanaalkana subscribe noo saara. Haddii aan ku bilowno wararka suuqa kala iibsiga oo amuuraha kaleeto gadaal aan dhiganana kooxda kubadda cagta ee Liverpool macallin Jurgen Klopp ayaa daneynaya in kooxda kubadda cagta ee Liverpool oo ku soo daro ciyaartoy dhowra bisha January marka la gaaro ama xil ciyaareedka cusub. Macallin Jurgen Klopp ayaana liiska ku darsaday laacibiinta Doni Malen oo ka tirsan kooxda kubadda cagta ee Borussia Dortmund oo xil ciyaareedkan bandhig cajiib sameynaya iyo Aria Tchouameni oo qab ciyaareedkiisa oo la dhacsan yahay kaasoo isagana u ciyaara kooxda kubadda cagta ee Real Madrid. Labadan nin ayuuna daneynaya macallin Jurgen Klopp inuu keeno qalcadda Anfield ee kooxda kubadda cagta Liverpool ee ku ciyaarto laacibka lagu magacaabo Doni Malen. majalada Daily Mail ayaa ninkan shaacisay in kooxda kubadda cagta Liverpool ay wakiilo u dirsadeen oo soo qiimeeya Jurgen Klopp ayaana Borussia Dortmund xidigeeda u arka mid ku habboon qalcadda Anfield ee kooxda kubadda cagta Liverpool. laacibkan ayaana ka ciyaara booska weerarka xil ciyaareedkan Borussia Dortmund goolal 4 gool ayuu siiyay 7 kulan oo ka soo muuqday asiguna bandhig cajiib ayuu sameynaya. Jurgen Klopp ayaa la dhacsan qaab ciyaareedka Doni Malen iyo laacibka loo magacaabo Aria Tchouameni oo muddo dheer oo ku daba joogay xilli xatee markii uu ninka Monaco joogay Liverpool la xiriirinayay walow Real Madrid oo ka doortay. Real Madrid laacibiinteeda Fabrizio Valverde iyo laacibka Tchouameni ayaa bartilmaameed waa Liverpool walow Valverde iyo Tchouameni xatee laga diiday laakiinse Jurgen Klopp ayaa markan bartilmaameed ka dhiganaya laacibkan Aria Tchouameni si uu keeno Anfield wax walbana waa loo sameynaya ayuu taagay marka Liverpool qadkeeda dhexo haata shuba oo wax kala ay rabaanba inay si adkeeyano Tchouameni lagu soo diro weerarkan rag kale la keeno. dhinaca kale tan kooxda kubadda cagta ee Manchester United ayaa u dhaqaaqaysa bedelka Jadon Sancho laacibka lagu magacaabo Fabrizio Chiesa kaasoo u ciyaara xul qaranka Talyaaniga iyo kooxda kubadda cagta ee Juventus. laacibka ka tirsan kooxda kubadda cagta ee Juventus ayaa raba inuu iskaga dhaqaaqo qalcadda Turin ee Juventus ay ku ciyaarto. Manchester United ayaana haatan inay January soo qaadato laacibkan si ay bedel uga dhigaan Jadon Sancho oo xurguf weyn ay kala dhaxayso macallin Erik ten Hag kaasoo gabi ahaanba u diidaya inuu ka sii mid ahaado kooxda kubadda cagta ee Manchester United. Ten Hag ayaa hore kooxda ugu saaray Cristiano Ronaldo markay isku dhaceen isagoo ka riday dhinaca Sacuudiga. haatan Jadon Sancho ayuu rabaa inuu ka saaro kooxda Manchester United bedelkiisana wuxuu u arkaa laacibka lagu magacaabo Fabrizio Chiesa kaasoo ka tirsan kooxda kubadda cagta ee Juventus. umuuraha kale ee suuqa waxa qayb ka isla umuuraha Manchester United ayaa doonaysa Chelsea kula dagaalamaysa laacib la yiraahdo Lauren kaasoo u ciyaara Flamengo. ninkan ayaana lacag gaaraya 30 milyan lagu qiimeeyaa. laacibkan ayaana laacib da'yara kooxda kubadda cagta ee Chelsea ayaana tartan adag la gelaysa Manchester United oo ku aadan laacibka Lauren la yiraahdo. laacibkan reer Brazil ayaa ka tirsan kooxda kubadda cagta ee Flamengo. labada kooxoodna waxay rabaan inay keenaan garoomadooda Stamford Bridge iyo Old Trafford. labada dhinac ayaa laacibkan si weyn ugu dagaalami doona markii la gaaro suuqa January. laacibkan ayaana kala dooran doona midkood Manchester United iyo kooxda kubadda cagta ee Chelsea laakiinse waxay ku xiran tahay qancinta laacibkan ee qanciyaan labadooda midkoodba. markan waxaan eegaynaa umuuraha kale ee abdheedida jira marka dhaawacyo badan ayaa kooxaha hareynaya koox walba ciyaartoy badan ayaa ka maqnaanayaba. kooxda Real Madrid ayaa bayaan ka soo saartay laacibka David Alaba oo kulankii Las Palmas ka dhaawacmay. laacibkan ayaana garoonka ka baxay daqiiqadii 40aad isagoo dhaawac sheeganaya. Ancelotti ayaana ka hadlay wuxuu yiri dhaawiciisu mid xaqiiqo haatan maahan isagu wuxuu taam u noqonayaa kulanka Napoli aan la ciyaareyno isbuucan. onni wuxuu seegayaa kulanka Giron ee la ciyaarayaan 3 bishan kooxda kubadda cagta ee Real Madrid. marka Alabana Madrid taageerayaashoodu waxay ka helayaan war farxad leh. markan Manchester United iyo umuuraheeda ayaa gooni u eegeynaa kooxda kubadda cagta ee Manchester United ayaa dhaawacyo
ciyaartoy badan uga maqnaayeen Lucas Shaw iyo Wan-Bissaka iyo ku jireen haatan waxa ku soo biiray laacibka daafaca Manchester United ee ku dhaataan ninka la yiraahdo Martinez lagu daray laacibka haatan ay amaahad ay ku soo qaateen Sergio Reguilon labada nin ayaana Manchester United dhaawacyo uga maqnaanaya waliba ku darso laacibka la yiraahdo Martinez muddo 2 bil ah ayaa la sheegayaa inuu garoomada ka maqnaanayo walow Reguilon laacibka la yiraahdana oo dhawaan haatan ay soo qaateen Manchester United wali aan la shaacin inta uu garoomada ka maqnaanayo laakiin Manchester United ayaa mid waxay ku tahay dhabar jab weyn maadaama Manchester ay ciyaarayaan tartamo badan EFL Cup-ka FA Cup-ka horyaalkii oo galab ay yihiin UEFA Champions League oo kulanka koowaad laga soo adkaaday marka Manchester xaaladdu way ku cakirantahay maca Erik ten Hagna markaan wuxuu u baahan yahay dib u shaandheyn inuu ku sameeyo qaybtiisa dambe daafaca Reguilon oo amaah oo keensadoo isdhaayay daafaca ku adkayso marka Shaw ka dhaawacmay iyo Malaysia haatan sheekadu waa sideedii Everton ay markaan taagan tahay Martinez oo ah hogaamiyaha daafaca Manchester United ee ruuxiga ah ee sida xaqiiqda u dagaalama isaguna waa kana dhaawacan ayaa galay marka waxay noqonaysaa Manchester United daafacooda inuu wali baastamirkiisa iska sii ahaanayo Harry Maguire-na oo boos helayo Harry Maguire ayaa markaan helaya dooqa koowaad yaa ka celinayaba inuu dooqa koowaad ee Maguire Martinez waa ka dhaawacan Lindelof ruuxiisa waa shaki ayaa la gelinaya isagoo ruuxiisa dhaawacayo ayaa laga soo sheegaya marka Manchester United umuuraheeda aad ay iskugu cakiriyeen dhaawacii ayaa gelaya isla umuuraha kooxda kubadda cagta Man United-na waxa qayb ka Anthony ugu dambeyn tababarka Manchester United ayuu ku soo laabtay Sanjona waxa lagu qasbayaa inuu kooxda iskaga baxo marka laacibka Anthony ugu dambeyn dib ayuu tababarka ugu soo laabtay isagoo lagu haystay eedeyn la xiriirta inuu saaxiibtiis wax yeelay inta ka baxay dagaal la galay adiga arintii way soo dhamaatay markaana Manchester United tababarkeeda ayuu dib ugu soo noqday dhinaca kale kulamo dhowr ayaa la ciyaaray waliba kulankii Al Nassr iyo kooxda Al Taw kooxda kubadda cagta ee Al Nassr ayaa 2-1 ku adkaatay kooxda Al Nassrna daqiiqadii 87 goolkiisii 10aad ee horyaalka Sacuudiga waxaa dhaliyay Cristiano Ronaldo kaas oo gool ku hogaamiyay kooxda kubadda cagta ee Al Nassr ayaan tan unbeaten waayo inaba caadi maahan iyagu horyaalka Sacuudi Pro League ayay kulan ka tirsan ayay markaan ciyaarayeen haddii aad muuqaalka heshaan oo la garay kana subscribe noo soo goodbye